السلام عليكم. ضربت مدينة سوماليلاند يسوي وجهة مدينة سوماليلاند وقرن فريقها أحسن فكرة في السنة وحيث تاجيه إن يكشف أيام هربانيتها مدينة سوماليلاند هم قطعوا مدينتها نافذة يوم مدينتها كلابة. ورهانتي وحن شلو بشغلنا ورنا وغلاص وشغلنا ورهنا ضد نافذة كا يبوا نجاه نافذة كا. أنا وسيلة ورهانتي توبرا هاي صوص على الماتريو تجمعيا سيدي بعديه هو غلوب يعرفين لها كودهان بشر سوماليلاند سيلو يلايو عقبها حط هاجن ضدك نافذة أرككا يبوا نجاه باكا. ورهانتي وحنوت هاجن هاي وأنا مصير شقي دوما سيدي أنا مصير هاي توبرا سيدي أنا مصير هاي إن أنا بعديه هو هذا gudahaan sanadkii imika soo dhaafo kala hadaan eegno 14 wadaliyaha oo ku kala nool gobolada Soomaaliland ayaa tababar siinay tabaasdi bildeed waxaanu u sheegi lahay maantii in ay dadka naafada ah qayuhu kala duwan ay ka soo qayb qaataan tababarada aanu bixino si ay uga mid noqdaan bulshooyinka waliba ay aad u yeelihiin runaantii markay eegno statistics-ka waxa lagu istimay gareeyaa dadka naafada ka ah inay 5% yihiin laakiin say ugu mid waa ka badan oo population Soomaaliland 4 milyan haduu yahay 1 milyan ama 900 oo ruux baa naafa 900 oo waxay u baahan yihiin inay helaan right-ka iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka kale. markii aan iskuulka bilaabay waxaan la soo galay dad dhaga qaba waxaana igu adkaatay inaan fahmo iska waran wal maxaad ii dhageysanaysaa yaahe mana kula hadlin maxay isla dhagatiraysaa maxaad waa ila hadlaada iska waran inkastoo hibo maqalkeedii ku weyday xanuun yaraanteedii asiibay waana waqtigan dhigaha waxba ka maqlayn ayaa haddana waxay dadaal xoogan ugu jirtaa xaqiijinta hadafyada ay nolosha ka leedahay. markii aan iskuulka bilaabay waxaan la soo galay dad dhaga qaba waxaana igu adkaatay inaan fahmo mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto waxaan doonayaa mustaqbalka inaan dhakhtarad noqdo maxaad jeclaan lahayd dadku ku daawanaya inaad u sheegto dadka dhagaha qaba jaamacada waa loo ogolaaday shaqooyinna waa la siiyay waalidiintoodna waa ay ku farxeen laakiin dadka dhagoolayaasha ah waa la cadaadiyaa waxbarasho iyo shaqooyinna looma ogola dadka dhagoolayaasha iyo dadka dhagaha qaba waa ay siman yihiin waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka waxbarashada inay dadka dhagoolayaasha ah u fududeeyaan si ay jaamacada ku heli lahaayeen maxaa yeelay jaamacadaha waa loo diiday shaqooyinna waa loo diiday dadka dhagoolayaasha ah marka mustaqbalka maxaa ay helayaan dadka dhagoolayaasha caqabadaha haysta dadka maqalka naafada ka ahi kumiyay kuwa kaliya dhanka waxbarashada balse waxaa jira caqabado kale oo dhaqan dhaqaale oo ku gadaamaan dadka maqalka naafada ka waxyaabihiga yaabi waxa kamid ah maalmaha kamid ah suuqa weyn ee Hargeysa socona aniga iyo 3 hablood dhagala ayaa waxaan arkay dad badan oo marka suuqa marayso ay sameeyaan bayasay dadka maqalka ka naafada ah ayagoo la eegay aan la qadarinaynin xushmada ay ku leeyihiin maxaa laday wadanka dadka qaar bas oranaysa markaad weydiiso aniga macluumaad badan waa la weydiiyay maxaad kala socotaa dadka maqalka ka naafada wadaga beeli maxaad ka doonaysaa wadaga qabtaa laakiin se alxamdulillah anu dadka mar kastaba waxaan ugu sheegaa inay naafadu tahay si fudud wax loo gali karo dadka dhagoolayaasha ay ku nool Soomaaliland waa dad aad u fara badan dhib badanina way haysataa haddana sidaas oo ay tahay helidda hanaan waxbarasho oo ku habboon dadka maqalka naafada ka ahi waa halka ugu dhow ay kaga gudbi karayaan badi caqabadaha dhaqan dhaqaale ee ku gadaaman noloshooda. hibo waa gabadh maqalka ka naafa ah waxaan isku baranay iskuulka 16 Juun maalmaha kamid ah ayaa macallin la soo fadhiisiyay waxaan ku iska waran walaal way maqal weeday ka bacdi intay soo eegtay ay buug igu qortay waxaan ahay qof dhagoole ah waan naxay markii dambe waxaan ku reedi male aan saaxiibna labadeenu
sidii baan ku saaxiibnay iyadna waxay bartay si aan ku caawiyana ka codsaysan ku caawiyo waxaad bartaa sign language-ka way bartay alxamdulillah meel fiicanna wallahi way gaarsiisay laamikana aad baan u jeclay wana saaxiibadayda ugu qaaliga oo ka jecelahay hablihii kale ee galaaska iskuula dhiganay aad baan ugu faraxsanahay inaan la saaxiibo amba la xiriiro dadka maqalka ka naafada ah dagoolayaashu waxa ay u baahan yihiin turjumaan waayo dhib badan baa haysata haddii ay turjumaan helaan mustaqbalka waxa la furayaa iskuulo badan waxaan doonayaa in iskuul gaar ah loo sameeyo dadka dagoolayaasha ah iyagoo u baahan dhul gaar ah in la siiyo waxa u badan dad badan oo marka hore aan ku dhalan imikana dhagabeelay marka waxaan u sheegi lahaa dadka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool inay yihiin dadkani dad xuquuq leh oo ina la siman naafanimadana aanu qofka bilaadanka ku dhalan ee laakiin si u gali karo gabagabadii waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo kale dalada sooya oo la shaqeysa dugsiga aan dhigto ee 26 June